deegaankan waa deegaanka majis baleyn gaar ahaan halka uu falku ka dhacay caawa isla markaana ay isugu soo baxeen boqolaal Soomaaliya oo ka tiiraysanaa dhacdadii caawa ka dhacday deegaankan waxaana qaarkood oo la sheekaystay ay sheegeen in dhacdadani ay noqotay mid cabsi ku abuurtay isla markaana ay aad uga tiiraysan yihiin tirada waxay uga hortaa sidii wax u dhacay meeshaan maanta waxa ka dhacday masiibo oo Soomaaliya dhexdeed ka dhacday inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ayaa leenahay meeshaan maanta waxa ku dhintay 3 ruux labana way ku dhaawacantay 3 ruux saddex nin oo odayaal oo toon centerka majlis baleyn laga yaqaano oo dadka ugu macquulshan maaragtay islaaxa iyo maaragtay nabadnimada iyo maaragtay alxamdulillah shukr rabbil caalamiin jamaacada salaada ku xiran bay ilaahay naga sabarsiinay gacanka gardaran baa dishay meesha horta maanta arrinkan baa ka dhacday wax dhacayna hore u sii dhici jiray maaha laakiin waa arrin aad laga wada naxo Soomaalida ku timid marka meesha yarka ugu horeeyay la dilay meesha iridiisa inta la soo gaar meesha oo korban ka soo dhaadhacay marka waxaan la kulmay meeshaan la kulmay wuxuu nin Soomaali ah oo soo cararay ninka xabad la dhacay marka korbaro aan waan baqaano markii aan soo baxnay wiilkaan aanay Allow naxariistay hadee dhaawac xun buu ahaa marka anagu ninkii la taagan baan xabada kala hadana la maqlay dadkii kale iyo xabada kala maqalnay wiilkii intaan la joognay hadana wayna loo yimid laba kale meesha ku dilay waan soo baxay marka Allow naxariistay wiil waxaan u yimid meesha yaala oo Maxamed Kafaris magaciisa la dhaho magac dheer Kafaris oo madaxa ugu dhuftay marka ninka kale ee meesha soo raacay wuxuu adeerka Cabdullah Musliire isna waa la dilay isla marka waa la qaaday waa tahay ninka marka xabada uu riday dad oo bartilmaameeda oo weeraraya ma jiray bas qof walba oo Soomaali oo ku soo harbo xabada ku riday hadii aan hadda ka hadalno anu horta ma ogi qaabku ninku wuxuu xinayay aqoon dheerna ma leeyahay laakiin ninku aad u fiican oo sheekh oo caalim u ahaan jiray oo dimsaadka dadka tujinay tan wixii qaaday kulli iimaankum ilaahay wuxuu baa qaaday bil aadanka waqti ruux markuu ruux dilayo ma garanaysaa 40 days bay iimaanka laga sii qaadaa marka ninkan qaabku ugu talagalay iyo qaabku u yimid ma garanayo laakiin waxaan dadka waxay sheegayeen qaarkood inuu hadallo u dhahaayay oo dadka xabad ridayo kale oo qaylinay midista arrintaas waxay sheegayeen dadka laakiin ma maqal waxaas anu ninka waan arkay maxaad ku dishay ma ku dhahay meesha soo gaariga booliska saaran walaal maxaad ku dishaan ku dhahay maxaa iimaanka ka qaaday ereyga ugu waxay ahayd waxa iimaanka iga qaaday anuba og iyo gaal baan ahay iyo dhaqaaqan ka soo dhaqaaqay intaan baan ogahay walaal waa tahay markana waxay la taagan gudoomiyaha hay'adda culimada Albayaan Sheekh Maxamuud Cadar Sheekh Maxamuud waxaad ka mid tahay culimada dalkan Koonfur Afrika Soomaalida maaragta inta badan hadalku u sheega ama wax gaarsiiya inta badan marka bal waxaad inaga warantaa dareenka arrintan maaragta culimada ay ka qabto بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد كنت أرن حنون بدن ويا أرن آدي آد حنون بدن دعاء عصب أو تيكو بعد ودن كسود أفريقيا ويا عدد انتهى لأك أو الصومالية هلا بقى دعوتها صدحنا أي دمتي gacan Soomaaliyeedna ku baxday oo markii koobaad runtii khasaraha intan la egdadka Soomaalida uu kana dhaco asbaabta la garan maayo ma fayooba ma xanuunsana ninkan wax ka dhaxeeyo nimanka isu keenay ma jiro runtii waa dhacdo baarid ay ku socoto xagga caafimaadka iyo xagga dambiga dhacay iyo asbaabta dhalisay intaba marka waa arrin xanuun badan ugu horeyn wiilashii dhintay Ilaahay u naxariisto ehelkoodina sabir iyo iimaan Allah ka siiyo labada dhaawacana Ilaahay ha caafiyo runtii bulshada waxaan ugu baaqaynaa guud ahaan dalkan South Africa joogta arrinta noocan tafaasiir kale inaan loo yeelin maxaa yeelay dhacdadani waa dhacdo Soomaali kala duwan oo qabaa'il iyo gobollo kala duwan ka timid ku dhacday weeye hal nin oo Soomaali ana u geystay asbaab marka cad ma jirto tafaasiir gooniya in loo sameeyo baaritaanka dawladda laga warsugo marka kadib wixii soo baxa waxa soo noqon dal qaanuun la joogaa halkaas marka sheekadu ay ku xiran tahay wada waxaan ugu baaqaynaa faralka noocan runtii in ka soo khasaaro sidan u badan hal mar dhacay uu kii koobaad yahay laakiin hadana waa jiraan faralka noocan oo dambiyada ah bulsho kastana way ka dhacaan Soomaalida Tuuriyo wax la isku dilay muxuu ahaa dil noocan oo kale to hal iyo labo gacan Soomaaliyeed ku baxday waxaan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed Ilaahay inay ka cabsato dhibaatadii meesha keentay in aanay muxuu ahaa dalkoodii ka keentay in aanay iyagii hadana mar kale aanay isku muxuu ahaa isla imanin calool wixii ay ku jirtay laguma daweeyaa la yiraahdaa waxa dalkana keenay colaad dhaxdeena ma aqbali karo maxaa yeelay dhibaato waxa noogu filan midda guud ee haysata cadadka Soomaalida ee lagu dilay wadankan 1000 ilaa 1500 ayaa lagu sheegaa inay dhan yihiin tirkoob saxiix ma jirto laakiin saas runtii lagu sheegaa oo ay dileen dad tuugiyo burcad aan ahayn Soomaali
soomaalidu inay isdisho marka dhibanayaashii isdhibaateynayay inaan noqono arrin xun weeye soomaalida waxaan ugu baaqaynaa ilaahay inay ka cabsadaan dhiiggu waa khatar muxuu qofka muslimkii ka zuuli maayo inuu ku sugan yahay waa sacnimo qalbigiisa iyo diinkiisa ilaa uu dhiig daadiyo ciriiri iyo cadaab iyo ciqaab markaas adduunka ugu bilaabanaya intaan aakhire la gaarin intaasaan dhihi lahaa kala hay dhacaan oo maaragtaa bulshada ay ka dhex dhacaan inta badan Soomaalidu waxay dhaqan u lahayd dadka culimada iyo dadka odayaasha dadka wax garadka in arrimahan oo kale ay galaan ininka fariin ahaan maxaa culimada iyo odayaasha maadaama ka mid tahay maxaa fariin oo gudbin lahayd waxaan gudbinaynaa hawshan taata ummadda Soomaaliyeed dariiqii ay u mari jirtay markay waxaan oo kale dhacaan bay u mari doontaa haddii la yiraahdo dhalinyarada waxaan ku waaninayaa inta badan dhibka idinka keena dheef baa la idinka baahan yahay runaantii dhibkiinu ha yaraadaan leh dhalinyaroy dheeftiinana badiya حقيقيا odayaasha Soomaaliyeed culimada diinta wax garadka siyaasiyiinta dhamaanna waxaan u sheegayaa barnaamijkan inuu noqon doono insha Allah barnaamij aan gacantanada ka bixin xaqiiqiyan waanu wada hadalnay xagga dhibku ka dhacay xaggu dhibku ku dhacayba isla markiiba odayaashu way wada hadleen runaantii waana mudaysanahay hadda waxa weeye markii uu aasku naga dhaco ragga duugno inaan isu nimaadno ayaanu ku mudaysanahay haddana waxaan filayaa saacada soo socotaan is arki doonaa haddii la yiraahdo marka aniga ahaan abshir daahir ahaan runaantii oday Soomaaliyeed baan ahay waliba oday hadda ahaan cimriga intaan jiro kaba sii weyn oo qurban in badan ku jira dadka iska soo silacay ee hay mileage ka baan ku jira runaantii waxaan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed ugu digaya odayaashu culimada diintu mutacallimiintu ha xakameeyaan wixii dhib ay arkaan ha u soo gudbiyaan cidii maxay ahayd u faradhoodhowan dhalinyarada waxa la idinka baahan yahay idinka iskale future kan hadda soo socda future kiina hagaajiyo magaciin dhulka ka qaada insha Allah adaa mudan waa tahay in gudoomiye dhacdada xala dhacday waxay dhacday xanuun badan oo Soomaali ku dhacday Soomaalina ka dhacday runtii maaragtaa wax la soo koobi kara ma dareenka lagu gudbinayo laakiin maxaa baaq ah oo ku dari lahayd oo maaragtaa qaybi culimada iyo odayaashii waxay soo gudbeen maxaa baaq oo ku dari bismillaah alxamdulillaah marka hore waxaan u tacsiyeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed musiibadii ku dhacday wiilasha Soomaaliyeed runtii waa arrin aad iyo aad u xanuun badan waa falkii ugu horeeyay oo noogu naxdinta badnay oo na soo gaaray waxa dareemi kartaa awal Soomaalida waa la dili jiray laakiin maanta in la yiraahdo Soomaali ayaa isdishay sawir aad u xun ay u bixinaysaa marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan mujtamaca Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan arrintaas si wada jir ah in macnaha aan isaga garab qabanno maxaa yeelay haddii maanta ay nagu sifowdo barnaamijkaas waxaa ka dhalan karo in Soomaalida la bartilmaameedsado in la yiraahdo Soomaalidu iyada isdisho oo ku sifowno in la yiraahdo qof kasto Soomaali ah meel kasta joogto inay saameyn ku yeelato maxaa yeelay waxa hadda wiilashaas lagu laayay hub sharci darro ay ahayd waxa dhacaysa marka in laamaha amaanka ay u helaan qeyl qof kasta oo Soomaali ah in xoogaa lagu carqalado shadad u looniseen hadii dhaxdeedii ma falka noocan ay ka dhacayaan maxaa dareena oo bismillaahir rahmaanir rahiim horta waan dadka Soomaalida ee dhibaatadu gaadhay eeladooda oo anagaba ka midnahay waan u tacsiyeynaa marka koobaad si guudna Soomaalida waan uga tacsiyeynaa soo waa dhibaato musiibo oo Soomaalida South Africa ku dhacday gaar ahaan gobolka Western Cape waana dhibaato saameyn fara badan leh oo kow dadkii ay ka dhasheen dadkii maartay dhintay marka koobaad taabanaysa marka labaad si qadiyadeed noo taabanayso oo Soomaalidu iyada islaysa wixii la leenayo dhan la dhahayo oo isla maanta jaraaido xataa wadanka iyo idaacado isoo wacay baa jira oo arintaas inkastoo difaacnay laakiin haddana iyagu waxay isku dayayaan maadaama dad fara badan oo Soomaali ah ay South African ku laayeen in dawladuna aynan ay qasab tahay inay ilaaliso dadka Soomaalida inay mararka qaar ku cudur daarato Soomaalidu iyaga isleeyna ma ilaalin karno marka saameynta ugu badan ee kor marka Soomaalida dhexda laga tagaa ay keenayso aniga hadda aan aad uga walwalay ilaa shalay isku mashquulinayay inaan kala hadlo saxaafadda wadankan arintaas ay ahayd laakiin warka adigu marka laga tago nimankan dhintay oo tacsiyeyno oo si xun loo dilay oo waxshinimo haddana laakiin arinta wanaagsan waxay tahay dad wax dilo baxsada jiray laakiin ninkii wax dilay in la hayo marka waxaan ugu baaqaynaa bulshada Soomaalida ee gobolkan ku nool iyo maaragtay kuwa wadanka guud ku noolba in laga wada shaqeeyo sida cadaaladda loo horkeeni lahaa ninka dhibaatada geystay dawladana lagala shaqeeyo sida loo hubin lahaa sababta ka dambeysay ninkan inuu dilo waana lagana hordhicin aniga intaasan ku soo koobay hadalkayo watahay waxa markan ila taagan qonsulka guud ee safaaradda Soomaaliya ee dalkan Koonfur Afrika ahna ku simaha safiirka Soomaaliya ee dalkan mudane Maxamed Cali Mire bal waxaad ka warantaa dareenka maaragta arintan ee maaragta dhalisay iyo guud ahaan Soomaalida waxay ka turjumayso dhacdada noocan oo kale ah bismillaahir rahmaanir rahiim ugu horeyn inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dhacdadani waxay ka turjumaysaa dareen aad u xun waxay rajo gab ka dhigaysaa dad badan oo Soomaalinimada iyo dhalinyaranimada iyo nabadgelyada ku hanweynaa especially markii waxa culays siila markii Soomaali dhexdeed ay tahay qofkii asagoo dhimanaya
balaayo markay disho iyo qof Soomaaliya gacantiisa markay ku dhimato waa kala xanuun badan tahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inay halkaas ku ekaato laakiin waa dhacdo xanuun badan waa dhacdo dhammaan qof kasta Soomaaliya meel walba joogo taabanaysa waana dhacdo aan uga wada tacsiyeynayna dhammaan familiyadii iyo qoysaskii iyo qaraabadii iyo asxaabtii iyo dadkii ay wada deganaayeen saddexaas marxuun oo dhimatay ilaahay ha u naxariisto inta badan dalkan Koonfur Afrika Soomaalida ku nool waxa la sheegi jiray in ayaga la dilo la dhaco la dhibaateeyo waxa jira dhacdooyin maalmo ugu dambeysay ama bishii la soo dhaafay xitaa qaarkood dhacay sanadkii la soo dhaafay sidoo kale dhacay oo ah in dad Soomaaliya ay dileen maaragtay dad South African kadibna ganacsi badan loo baabiyay dhacdada noocan oo kale sidoo kale waa jirtay xal dhacday oo ilaa 3 qof oo Soomaaliya la dilay marka dhacdooyinkaas marka la isku soo daro kale iyo dhibaatooyinka Soomaalida loo geysto ma isleedahay waji kale ay bixin karaan oo ah in Soomaalida maaragtay bartilmaameed laga dhigsado صحيح حقيقيا ها sababtoo ah annagu markaan dawladda Koonfur Afrika la xisaabtamayna waxaan dhahnaa dadka ay waa dad masaakiina waa dad qaxootiya waa dad ganacsataa waa dad soo qaxay oo dagaal iyo shida ka soo qaxay saas markaan dhahno waxa opposite kayaga ah dad qaba Soomaalidu inay tahay dad hubaysan hub sharci la'aan haysta wax dila oo ayagu isdilo labadayada doodood taayada aad u adkayd laakiin sagaalkii bilood la soo dhaafay waxa dhacday dhacdooyin badan oo dil ah oo Soomaalida dhexdeeda ah ama Soomaalida ajnabi ay disho Koonfur Afrikaan ay disho oo hub sharci darra lagu dilo marka ficilada noocan ah waxay hagardaacinayaan oo dib u keenayaan dadaalkii safaaraddu waday ee ahayd sidii dadkan maalkooda iyo naftooda sumcaddooda lagu difaaci lahaa hadda waxa culays naga soo fuulaya dadka lidiga ku ah Soomaalida oo ku garhelaya marqaatigan markay haystaan ay leeyihiin Soomaalidu ayaga isdila waa dad fawda waa dad dagaal dhahaya marka culayha hub sharci darra isticmaalaan haystaan haddana waa isticmaalaan waxbay ku dilaan ayagaaba isku dila marka waxa imaanaysa in dambi walba la dhaho Soomaalidu ayada istisha lama dilo waa culays annagana haysta hadda oo nagu soo laabanaya dhankaas culays ka leedahay ma santaay markan ugu dambeyn fariinta maaragta aad gudbinaysaan oo bulshada maaragta maadaama dhacdadan iyo dhacdooyin kale ay jiraan ugu dambeyn maxaa fariin oo gudbinaysaan fariinta koowaad waxay tahay in shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan ay sharciga wadanka u hoggaansamaan waa inay hubka sharci darrada faraha ka qaadaan waa inaysan isdilin qofkii dacwo qaba qofkii dhib qaba wuxuu dacwada u gudbsan karaa dawladda wuxuu dacwada u gudbsan karaa culimada wuxuu dacwada u gudbsan karaa odayaasha waxaan ka codsanaynaa dadka Soomaaliyeed inay isdaayaan dilka inay joojiyaan ilaahay inay ka cabsadaan dad qaxootiya oo masaakiina oo wadankooda uga soo qaxay baan dhibaato iyo dagaal iyo nabadgelyo halkan inaan kaga faa'iideysano nabadgelyadaas inaan ka faa'iideysano ganacsigaas inaan ka faa'iideysano inaan ismaxabaysano inaan iswalaalaysano waxaan rabnaa sharciga in loo hoggaansamo Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe telefishinka qaranka Soomaaliya Captain Koonfur Afrika